is-aragga madaxweynayaasha labada maamul ee Puntland iyo Galmudug oo ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya wakiilka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay midowga Yurub IGAD iyo midowga Afrika madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo hadalka hor qaatay ayaa tilmaamay in isu imaadkooda uu ku qotomo xalka gaaridda colaadda Gaalkacyo ka taagan waxa weeye maanta waxa isugu nimid in dibta Gaalkacyo nabad iyo xal waara laga gaaro xaaladaas oo keentay colaad soo laalaabatay marka inaanu helno fure xalka Gaalkacyo helana nabad waarta insha Allah ka Puntland ahaan wadadii 11 sano ee u dambeysay dadka reer Puntland ee ku nool Gaalkacyo iyo deegaanada la dariska ah waxaa loo geystay runtii dhibaatooyin baaxad weyn oo weeraro joogto ah barakicin iyo horistaag horumar koodii ay ka sameeyeen deegaanadooda waxa kala xusid mudan dhacdooyinka u dambeeyay runtii waxaa la dhameeyay waxgaradkii furaha u ahaa nabadda dabcan marka mar walbaana Puntland waxay ku jirtaa runtii difaac Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegay in dadka wada degan gobolka ay yihiin dad aan kala maarmin sidaa darteedna ay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo nabad dadku ay ku wada noolaadaan waxaan aaminsanahay magaalada Gaalkacyo inay tahay magaalo aad istiraatiiji u ah oo Soomaaliya xudunteeda ku taalo nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya ay u tahay aasaas iyo base inay u tahay aaminsanahay waxaan aaminsanahay dadka reer Gaalkacyo inay yihiin dad walaalo ah oo wada dhashay oo ehla inay magaaladan ku wada noolaadaan ay tahay mid waajib ah inay tahay cid walba anaga naga mid ah inaan garwaaqsano Gaalkacyo magaalo dadka degan ay wada leeyihiin waxa ay ku deeqdaan ay tahay nabad iyo xasilooni inay ku deeqdo ee colaad iyo dagaal inay si ku deeqin inaan maaragtay aan aaminsanahay waxaan kaloo aaminsanahay inaysan marnaba suurtagal ahayn qof Gaalkacyo dadka degan ka mid oo deegaankiisa ka mid ah in qofka kale uu ka saaro inaysan suurtagal ahayn inuu qofka kale uu ka qabsadana inaysan suurtagal ahayn mar hadday sidaas tahay waxaa xaq nagu wada dhammaanteen waajibna nagu ah inaan garwaaqsano magaaladaani nabadeeda iyo xasiloonideeda inay tahay aasaas iyo base inay tahay ayaan aad iyo aad u aaminsanahay inkastoo madaxda Galmudug iyo Puntland ay horaantii bishaani ku wada kulmeen dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayna soo saareen qodobo sal u ahaa xalka gaaridda xiisadda colaadeed ee Gaalkacyo haddana ma noqon kuwa dhaqan galay ha yeeshee saddex qodob oo gogol dhig u ah sidii loo wajihi lahaa khilaafka labada dhinac ayaa waxaa soo jeediyey ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid waxyaabihii aan hadda isla garanay oo ah saddex qodob waxa weeye xabad joojin degdeg ah iyo guddi labada dhinac ee ka shaqeeya xabad joojintaas in maanta la soo magacaabo haddii la yidhaahdo qodobka labaad waxaa weeye in bisha 20 haddii la yidhaahdo Kismaayo isugu yimaado oo meeshaas wada hadalka lagu galo tan saddexaad waxaa weeye wada hadalkaas inay ka soo baxaan habka loo wada hadlayo guddiyada wada hadlaya iyo kulli marka saddexdaas qodob way isaanka maanta waxaa la yidhi nabad iyo heshiis waa mid ee laba maaha waan samaynaynaa iyo waa heshiinaynaa laakiin uu jirto heshiis waa heshiis ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Soomaaliya Michael Keating ayaa dhinacyada ku booriyay sidii nabad looga wada shaqeyn lahaa asaga oo soo hadal qaaday dhibaatadii dagaalka laga dhaxlay ra'iisul wasaare Sharmarke ayaa mugdi geliyay hirgelinta nidaamka federaalka waxa uuna tilmaamay in haddii lagu raysan waayo dib u eegis lagu sameyn doono maanta lagu hayaa aasaasa qofka waa mar xabad joojin aan mar dambe xabad ka dhicin meeshaan wada hadalka inta laga gaarayo wada hadalkan haddii la yidhaahdo sidii awdooy loogu soo siiyey bisha 20 Kismaayo isugu yimaado wada hadalka la galo midda Gaalkacyo gudaheeda ayadana la galo arrintan waxaa xogaaya yacni yaab ah sideeda waxaan isleeyahay annaga federal system dadku waa ku degayaan laakiin haddii federaalkii uu xabad iyo xogaa dhib keenayo inaan ayaga xataa dib u fiirino wey haddii la yidhaahdo hogaamiyaasha Galmudug iyo Puntland ee maanta ku kulmay Gaalkacyo islama aysan soo hadal qaadin kala qaadista ciidamada isku hor fadhiya halkii colaadu ay ka bilaabatay ee daanta galbeed Gaalkacyo iyo soo celinta dadkii ka barakacay magaalada kuwaasi oo daafaha magaalada daadsan ha yeeshee madaxda hadaladooda ayaa waxa ay ku koobnaayeen oo kaliya is-aragga Kismaayo iyo xabad joojin Cabdiwaaxid Macalin Isaaq VOA Gaalkacyo
Thank you.